tababaraha Liverpool Arne Slot oo sharaxay sababta Alexander Isak aan loo safin ciyaartii Burnley. Tababaraha Liverpool Arne Slot ayaa ka hadlay sababta uu weeraryahanka cusub ee kooxdiisa Alexander Isak uga maqnaa kulankii Premier League ay Reds la ciyaareen Burnley. Isak ayaan gabi ahaanba lagu soo darin liiska ciyaartoyda, taasoo dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan xaaladiisa. Slot oo sharaxaya arrintan ayaa yiri: "Waxaan go'aansanay inay fiican tahay inuu helo toddobaad dhammaystiran oo tababar ah, halkii mar walba uu 5 ilaa 10 daqiiqo ciyaari lahaa." Tababaraha ayaa intaas ku daray: "Waxaan taageerayaasha u xaqiijinayaa inuu ciyaari doono Arbacada. Ciyaartan maanta wax yar bay ka soo hormartay xilligii aan ugu talgalnay inaan xaqiijino tamaanshiisa." dhinaca kalena, Fermin Lopez oo war rasmi ah ka soo saaray mustaqbalkiisa Barcelona kadib guushii weyneed ee Valencia. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Fermin Lopez, kaas oo dhaliyay 2 gool isla markaana caawiyay gool kale, ayaa la hadlay majalada Movistar Plus kadib guushii weyneed ee kooxdiisa 6-0 kaga badisay Valencia. Isagoo ka hadlaya goolashiisa iyo ballanqaadka uu u hayo Barcelona ayuu yiri: "Weligii kama aan shakin bandhigayga. Mar walba waxaa jiray warar iyo malawaal, balse anigu waxaan rabay inaan halkan joogo. Waxaan u dagaalami doonaa inaan halkan sanado badan sii joogo." Sidoo kalena waxa uu ka hadlay xiisaha ay u muujisay kooxda Chelsea. "Waa qayb ka mid ah kubadda cagta, wararka iyo sheekooyinka noocaas ah. Aad baan u deganaa. Haddana waan ku faraxsanahay inaan halkan sii joogo." Robin Amram oo sharaxay sababta ka dambeysay guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Man City. Tababaraha Manchester United Robin Amram ayaa qirtay in kooxdiisu fursado badan ay heshay balse ay ku guuldareysteen inay ka faa'iideystaan, taas oo sababtay in lagu garaaco 3-0 garoonka Etihad kulankii Manchester Derby. Amram ayaa ciyaarta kadib yiri: "Waxaan haysanay fursado aan ku dhalin karno goolal aan ku furno ciyaarta. Waa inaan noqonaa kuwo dhammaystir fiican leh. Dhibaatada ugu weyn ee noo horseeday guuldarada waa midaas. Ugu dambeynna City waxay ka faa'iideysteen fursado kooban oo ay heleen. Waa inaan sidaan wax ka bedelnaa. Dhabtii waxaan muujinay isku dhexyaac. Marka aad eegto goolka 3aad, qalad ayaa jiray oo isku xirnaan ah. Ciyaartoydu ma oga qofka kubadda aadaya. Natiijaduna waxay noqotay inuu si xor ah u dhaliyo. Guuldaradani waxay dhabarjab ku noqotay United oo hadda kaliya 1 gool heshay 5 kulan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League." Ugu dambeyntiina, Caicedo oo digniin culus u diray Bayern ka hor kulanka Champions League. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Moses Caicedo ayaa Bayern Munich uga digay in Blues ay si buuxda ugu diyaar garoobayaan kulanka ay wada ciyaari doonaan Champions League. Isagoo ka hadlayay kulanka soo socda, Caicedo ayaa sidoo kale muujiyay niyad ku saabsan barbarihii ay la galeen kooxda Brentford. "Runtii waxaan ka niyad jabsanahay natiijada, balse hadda waxaan ciyaaraynaa kulan kale oo Arbacada ah. Waxaan diiradda saaraynaa kulankaas. Qof walba oo naga tirsan diyaar ayuu u noqon doonaa kulankaas," ayuu Caicedo ku sheegay hadallo lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Chelsea. Warbixinadaasna waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaamin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.